Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta aan jecelahay, asxaabtayda soo groups, waan idin salaamay. Salaan kadib, maanta waxaan rabaa akhyaaray inaan idin tusiyo sida flash looga dhigo bootable. Yacni waxaan ka wadaa flash bootable, waxaan ka wadaa sida flash loogu isticmaalo Windows package ama window sida loogu shubo flash. Okay, si flash aad window ugu shubto, horta waxaad u baahan tahay inaad heshaa softwarekaasoo la magac baxay wuxuu la magac baxay softwareka computer science ee Windows. Okay, waxaa ku jira halkan Windows 7 iyo Windows 10. Windows 7 waa sidaan u jeedno waa 3.4 iyo 7 GB. Waxaan u isticmaali doonaa wax loo yaqaano USB tool oo ah Revus 2.10. intaan isticmaalin ka hor waxaad u isticmaali kartaa windowyada noocyadiisa kala duwan. Hadda laakiin ani waxaan hayaa Windows 10 iyo waxaan hayaa Windows 7. So hadda waxaan ku sameyn doonaa cashirka ugu horeeyo Windows 7 oo ah 3.47 GB. Okay, so si aad uga dhigto bootable, horta waxaad u baahan tahay marka hore inaad iska soo hubiso flashka wax maa ku jiro. Okay, flashka waa kan, waan furi doonaa. Flashka waxaa ku jiro programmingkan aan ka saarno, aan dhahno keliya flashka waxaa igu jiro. Okay, wax fiican. Okay, waan tirtiri doonaa. waxaan leenahay format. Markaan dhahno format kadib, in uu flashka wax kugu jiro looma baahna markii laga dhigayo bootable. So markaan format gareynayo, qof uma sheegayo sida loo format gareeyo, waa taqaanaan. So waxaan leeyahay start, kadib waxaan leeyahay okay. Markaan okay dhaho oo program okay wuu dhamaaday, format complete markuu dhaho, so waxaan soo kicin doonaa anoo furin programkan ama flashka aan furin. Waxaan soo kicin doonaa programkii oo ah USB tools. Kadib waxaan leeyahay rafskaan ku dhufan doonaa, double click aan siin doonaa. Kadib waxaan leeyahay, wuxuu leeyahay ma dooneysaa ama computer inaad ku xirato, ma ogolaaneysaa change inuu device-ka ku xirmo. Waxaan leeyahay ha, waan ogolahay. Okay, markaan saas dhaho oo aan ku xiro, waxyaalaha muhiimka ah waxaa ka mid ah, horta halkan waad ujeedaan waa Toshiba transfer memory USB device, waa 7.8 GB. laakiin hadda levelka ama GB-ga uu ku fadhiyo aan fiirino. horta GB-ga uu ku fadhiyo waa 7.20 GB waaye. So kan uma baahna, waa internet ku xiran, dhib ma lahan, close iska dheh. Okay, markaas saas dhahdo waxaan leenahay maxaa extra fat ma rabtaa inaad ka dhigto markaad ku shubanayso. waxa ka bedelin meeshan. Okay, waxa ka bedelin, waxaad leedahay oo keliya waxaad soo dooranaysaa halkan badhankan ay ku qoran tahay click to select an image. aad click siin doontaa. kadib markaad click siiso, wuxuu kugu xiri doonaa. hadda wuxuu taagan yahay Windows 10. waad ka raadin doontaa meesha aad ku shubto windowgaaga. Okay, ani Windows aan furi doonaa. kadib waxaan ka dooran doonaa wax loo yaqaano Windows 7. kadib programka ama ISO filekan aan ku dhufan doonaa. kadib waxaan leeyahay open. markaan open dhaho, wuxuu kugu qoray meeshan CD-ROM-ka ama new volume levelka uu qaadan doono flashkaaga. magacuu qaadan doono wuxuu noqon doonaa CD-ROM u qaadan doonaa. So si aan u ogaado inuu CD-ROM qaadanayo, waxaan leeyahay kadib wax weyn ma sameyn doono. waxaan sameeyey oo keliya kanaan click siiyey. kadib waxaan kasoo doortay meeshii aan folder, for example document haddaan leeyahay, documentigaan kasoo bixinaa. Okay, hadda wuxuu igu jiraa PC-gaan furi doonaa. Okay, wuxuu igu jiraa local D.
kadib wuxuu kusii jiraa computer science wuxuu uga sii jiraa waxa loo yaqaano windowska aan furi doono. kadib waxaan leenahay windows 7, kadib waxaan kasii dooran doonaa windows 7. kadib markaan click siiyo oo aan dhaho open aan leeyahay, kadib wuu ku xirmay. wuxuu leeyahay waa ready, ma dooneysaa inaad, kadib waxaan leeyahay start. okay, wuxuu dhahay warning digniin, all data on device, daatooyinka oo kugu jiro no label e, wax label e ah ma laha. so wax walbo daatooyinka kugu jiro, programka kugu jiro ama flashka kugu jiro will be destroyed, way halaabi doonaan ama way burburi doonaan. si loo sii wado operationkan waxaad click siinaysaa okay, ama si looga baxo waxaad click siinaysaa cancel. okay, ana waxaan u baahanahay inaan bootkeyga u ii aqriyo flashka. waxaan leeyahay si uu usii socdo programka, waxaan leeyahay okay aan leeyahay. okay, programka wuu ku shubmayaa creating system task. okay, wuu socdaa, waqti yar uu qaadan doonaa insha allah, waan isla arki doonaa xillig uu qaadanayo. wuu socdaa programka. intuu uu kasii soconayo waxaan sii sameyn doonaa, waxaan sii fiirin doonaa wax yar oo ku saabsan, waxaan kasii hadli doonaa. okay, inta maxaa okay, maxaan ka hadalnaa? okay, waxaan ka hadlaynaa programkan oo loo yaqaano filezilla client. filezilla client muxuu yahay? wondershare horta aan idin sheegayo, wondershare Filmora waa kan. wondershare Filmora oo aan ku sameyn doono 3D projectiga aan ku sameyn doono waa kan. okay, sidoo kale Unity mana quseeyo, laakiin qofkii doonayo wuu isticmaali karaa. waa program lagu dhiso gameska. sidoo kale waxaa kaloo jiro wax loo yaqaano for example nutcut. macnihiisu wuxuu yahay haddii internetkaaga uu isticmaalayo qof kale, si aad uga saarto internetkaaga waa inaad soo dejisataa softwareka, kadibna aad ka saartaa qofka kuga jiro userka isticmaalayo, si qarsoodi haddii uu isticmaalayo ama si kaleba waad ka saari kartaa. waxaan rabaa inaan idin tusiyo. okay, kan ka saar. waxaan u baahanahay okay, waa inuu mar kale intuu programka ka dhamaanayo. markuu programka ka dhamaaday kadib waxaan idin tusi doonaa sida uu u noqday bootable. waadna mahadsantihiin akheeray. waan soo laabtay, programkii wuu dhammaan rabaa. wuxuu qaatay 20 daqiiqo in ka yar, waa 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo. okay, programkii wuu ku shubmay. inuu ku shubmayna waxaan ogaan karaa markuu mar labaad yidhaho start. okay, si aan u arko inuu programka windowga ama uu noqday windows of bootable, waa inaan furaa programka computer. so waad ujeedaan cd roomka. markaan furo waxaan ku arki doonaa setupska, sida setupyadan aan ku arki doonaa. okay, meeqa gb waaye? okay, 3 gb waaye oo ad ujeedaan 3 gb waaye. so haddii oo computer virus qaba aada haysato, haddaad furto programkan looma baahna inaad furto programkan. waxaa u baahan tahay markaad inta aadan furin ama computerka ha ku furin programka viruska kugu jiro computerka. cosfiri aan ku tusiyo properties. waa setup extensionka waa windows installer. so windows installerka hadduu softwarekii installerka ama bootkiiba hadduu kaa baxo uu virus kaa cuno, ma kuu shaqeyn doono softwareka ama microsoft windowska ama cd room windowgan kuma shaqeyn doono. so waxaad u baahan tahay haddii aadan computer virus lahayn, waxaa wanaagsan sembry inaadan ha furinba. keliya markaad ku shubanayso computerka restart u dir ama
shutdown u dir, demi, kadib markaad demiso kadib ku xiro, kadibna install gareyso, kadibna insha allah waa arki doonaa sida loogu shubo windowga. waadna mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.